Maraykanku waxa ay u muuqdaan inay bariga dhexe xamaamadooda ka xirxiranayaan isla markaana ay diiradda saari doonaan sidii ay uga hortagi lahaayeen quwadda sii kordhaysa ee Shiinaha iyada oo fariisimo cusub ka samaysan doonta dalalka dariska la China xilli dunidu si weyn arrintaasi ay indhaha ugu hayso. Maraykanku tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii qabooba awoodda adduunkuna ay ku ururtay gacanta Washington waxa ay xoogga saaraysay sidii ay u xakamayn lahayd awoodaha dalalka bariga dhexe kuwaas oo ay u badan yihiin dalal muslim ah walwal iyo shaki weynna ay ka qabtay Washington inay noqon doonaan kuwa ka hor istaaga damaca ay ka leedahay meelo ka mid ah gobollada muhiimka ah ee bariga dhexe kulaalaya. waxa ay dagaal ku qaadeen xoogna ku galeen dalal badan oo bariga dhexe ah ka bilow Afghanistan, Iraq, Suuriya iyo kuwa kale ayagoo isla waqtigaasi dawladaha kale ee mandiqada la samaystay isxulafaysi u adeega danahooda oo ay kor ka maamulayaan. maadaama dalalka bariga dhexe badankoodu ay muslimiin yihiin Maraykanku had iyo goor waxay cabsi ka qabaan quwad aad u xoog badan islaamkana hogaamisa inay halkaasi ka soo baxdo balse haatan waxay u muuqataa quwaddii ay ka raadinayaan dalalka bariga dhexe awgeed inay ka hoos baxday dowladda Shiinaha oo loolan ba'an ku haysa hadda Washington damaceeda. Shiinuhu muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu hormariyay quwaddiisa military midda dhaqaale iyo teknolojiyadda casriga ah waana saddexda arrimood ee waqtigan lagu loolamayo dunida waana arrinta ku riixday Washington inay ka hortagaan ka hor inta aysan isku bedelin quwadda cusub ee adduunku. Shiinuhu wargeyska The Wall Street oo xiganaya saraakiil ka tirsan maamulka Maraykanka waxa uu sheegayaa mas'uulka ay xiganayaan in wasaaradda difaaca ee Maraykanku ay go'aansatay in ay 8 ka mid ah batariyada Patriotka gantaalada difaaca Maraykanka ay kala baxaan batariyada kuwaas oo dalalka ay yaalaan ay ka mid yihiin Iraq, Kuwait, Jordan iyo Saudi Arabia. balse sidoo kale Sacuudiga waxa ku xiran gantaalada difaaca casriga ee loo yaqaan Tide. wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaana go'aamisay in laga soo furfuro Sacuudiga. intaasi kuma eka qorshaha Maraykanku ku yareynayaan joogitaankooda bariga dhexe waxa ay doonayaan in ay yareeyaan diyaaradahooda dagaal ee ku sugan mandiqadaas gaar ahaanna kuwa ku sugan boqortooyada Sacuudi Carabiga ee ilaaliya. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in hawshan ay sidoo kale ka mid tahay dib u dejinta boqolaal askari oo ka tirsan qaybaha militariga ee ka shaqayn jiray ama taageeri jiray nidaamyada iyo dalalkan Carbeed. waxa ay tallaabadu ku beegmaysaa iyadoo gabi ahaanba ciidamada Maraykanku ay ka baxayaan Afghanistan dhammaadka xagaagan sidoo kale la dhimi doono ciidamadooda ku sugan Iraq. dhimistu waxa ay bilaabatay horraantii bishii Juun kadib markii xogayaha difaaca ee Maraykanku uu ku wargeliyay dhaxal suugaha Sacuudi Carabiya Amiir Mohammed bin Salman isbeddelada soo socda ayagoo ku wada xiriiraya wicitaan dhanka telefoonka ah labadii bishan sida ay sheegeen isla wareedyo wargeyskan uu soo xiganayo. wargeysku waxa uu kaloo tilmaamay in saraakiil ka tirsan maamulka Joe Biden ay caddeeyeen in Sacuudigu ay goobjoog u ahayd inta badan hanaanka la bixitaanka qalabka militariga. waxa ayna ka soo xigatay sargaal sare oo Sacuudiyaan ah inuu yiri dhimista ciidanka iyo qalabka military ee Maraykanka kuna sugan bariga dhexe waxa loo arkaa inay tahay arrin uu Maraykanku ku yareynayo awooddiisa gobolka iyadoo oo laga dhigayo awood la mid ah sida uu xaalku ahaa ka hor inta uusan maamulka la wareegin Donald Trump madaxweynihii xafiiska baneeyay ee Washington. inkasta oo sargaalkaasi sidaas yiri haddana waxa la yaqiinsan yahay in Washington ay ula baxayso quwaddeeda military ee dalalka aanu sheegnay in diiradda sida ay u saari lahaayeen caqabadaha uga imaanaya dhanka Shiinaha iyo Ruushka sida ay sheegayaan saraakiil kale oo la hadlay wargeyska The Wall Street. waxaa xusid iyo sheegid mudan in shir madaxeedkii dhowaan ay yeesheen madaxda dalalka gaashaanbuurta NATO la isku waafaqay in laga hortago awoodda sii kordhaysa ee dalalka Shiinaha iyo Moscow waxaana madaxda ururka NATO isku raaceen in si wada jira arrinta looga hortago loona arka dhab ay tahay in dheeldheel aan loo qaadan. Maraykanka iyo Shiinuhu waxa uu markii uu xilka hayay Donald Trump dhex maray dagaal dhanka dhaqaalaha iyo teknolojiyadda ah. Beijing
dagaalkaasi waxa ay kala soo hodeen guul aad u weyn maadaama uu kobcay dhaqaalahoodu muddadaas waana arrin ay Washington doonayn inuu soo kabto ama uu dhaco dagaalka military taasoo ay dadaalka gelinayaan sidii ay uga maarmi lahaayeen ka hor xagaaga soo wajahan